وقيبتني بوغا New Concept English Practice and Progress. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Susman Official Channel. Passage 33 waa sheekadii 33aad ee buugga New Concept English Practice and Progress. Waa ciwaankanaga ah Out of the Darkness. Out of the Darkness waa meel ka baxsan mugdiga ama ka fog mugdiga. Out of the Darkness. Nearly ugu dhowaantii a week toddobaad past ayaa lasoo dhaafay before the girl intaysan gabadhu was able awooding to explain inay sharaxdo what had happened waa waxa ku dhacay ayada. One afternoon hal galab she set out from the coast waxay kasoo shiraacatay ama kasoo baxday ay soo aaday ay kasoo shiraacatay in a small boat. Doonyar ay waxay kaga soo shiraacatay and was caught waxaana qabsaday ama ku habsaday in a storm tuufaan. Towards evening markii loo sii socday dhanka ama cagsiga xagga fiidka markii la sii galayay, the boat doontii struck waxay ku dhacday a rock jamal ayay ku dhacday and the girl gabadhiina jumped into the sea waxay ku booday badda. Then kadib she swam to the shore waxay u soo dabaalatay xeebta after spending kadib markii ay ku qarash garaysay ama ku qaadatay the whole night habeenkii oo dhan in the water biyihi. During that time inta lagu guda jiray waqtigaas she covered waxa ay u soo socdaashay waa markaan covered traverse ama boat behind covered a distance masaafo of 8 miles ah oo 8 mile ayay soo safartay. Early next morning aroor hore subaxii dambe oo xigtay she saw waxay aragtay a light ahead horteeda ayay leer ay ku aragtay. She knew way garatay ama ogaatay she was near inay ku dhoweyd the shore xeebta because maxaa yeelay the light was high up on the cliff wuxuu kor ahaa gebiga ayuu high up wuxuu sare u ahaa on the cliff gebiga korkiisa ayuu ahaa. On arriving at the shore imaaditaanka ay imaaday xeebta the girl gabadhii struggled up waxay u soo halgantay to the cliff gebiga towards dhanka xagga the light ee leerka xigay she had seen ay aragtay. That was all she remembered. Inta oo dhan waxay aayeen inta ayada ay xasuusatay when goortii she woke up ay soo toostay a day later maalin dambe oo goor dambe ah. A day later goor dambe maalin uu soo toostay. She found herself waxay ogaatay nafteedii in hospital inay isbitaal ku jirto. Comprehension fahankan praises iyo dulucda kooban answer ka jawaab these questions su'aalooyinkani not more than aan ka badnayn 65 words 65 eray. When did the girl set out from the coast goorma ay gabadhu ka soo baxday ama ka soo tagtay xeebta? Was she caught in a storm ma tuufaan baa qabsatay or not? Did her boat doonteeda strike ma waxay ku dhacday a rock jamal or not? Did she jump into the sea ma baddi bay ku booday? Did she remain in the boat mise doontii bay hara ama baaqi ku noqotay? How many miles did she swim that night? habeenkaas imisa mile ayay soo dabaalatay? When did she reach goorma ayay soo gaartay the shore xeebta? What had she seen high up maxay ku aragtay meel kore on the cliffs gebiga meeshii kore maxay ku aragtay? Did she climb up ma fuushay ma kortay or not mise maya? Where did she find xaggee bay ku ogaatay herself udeeda a day later maalin goor dambe ah?
Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Passage 33. Out of the darkness. Out of the darkness. Nearly a week passed before the girl was able to explain what had happened to her. One afternoon she set out from the coast in a small boat and was caught in a storm. Towards the evening, the boat struck a rock and the girl jumped into the sea. Then she swam to the shore after spending the whole night in the water. During that time, she covered a distance of 8 miles. Early next morning, she saw a light ahead. She knew she was near the shore because the light was high up on the cliffs. On arriving at the shore, the girl struggled up the cliffs towards the light she had seen. That was all she remembered. When she woke up a day later, she found herself in a hospital. Comprehension and praises. Answer these questions in not more than 65 words. When did the girl set out from the coast? Was she caught in a storm or not? Did her boat strike a rock or not? Did she jump into the sea, or did she remain in the boat? How many miles did she swim that night? When did she reach the shore? What had she seen high up on the cliffs? Did she climb up or not? Where did she find herself a day later? Thanks.